daawade kusoo dhawaw channelkeena barashada architectural design-ka fadlan subscribe sar si aad u hesho cashiro dhaxal gala furana calaamada gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee hela bismillaah wasalaatu wasalaam ala man la nabiy ba'da insha Allah maanta waxa bilaabi doonaa dabaq ayaan bilaabi doonaa markuu ugu horeysa unit-keeni dimension-kii wixii oo dhan waan iska soo wada saxsaxnay sidoo kale waan iska soo wada hubinay dhammaan afarta hoose oo ah grade-ka dynamic input-ka orthaha iyo snapping-ka dhamaantooda waa iska hubinay sidaas oo kale unit-keena waa saxanay layer-keena waa wada sameysanay insha Allah marka maanta dabaqaas ayaan ka bilaabi doonaa dabaqana waa kana waana hoos markuu hoos laga fiiriyo waa 13 bar 13 bar 13 iyo 30 cm kaas ayaan ka bilaabi doonaa hoosna wuxuu inoo yahay baqaar okay kor marka imaano ayuu isba bedeli doonaa laakiin hoos wuxuu noo wada naqanaa baqaar oo inoo wada naqanaa salfan soma okay baqaarka hadda asiga kan hadda ma kala xirxirna ana waan kala xiri doonaa waxa leenahay kan dukaan oo naqanaa kan sidaas oo kale dukaan kan ya kan dukaan kan baqaar oo naqanaa okay kadibna qaybtaana waa qaybta guriga loogu kori lahaa okay sidaas ayuu noqon doonaa markuu ugu horeysa AutoCAD-keena aan tagayna waxa leenahay waxaan soo qaadataa line kadibna kliga inta ku siinayna cabirka sidaan aan haysano waa 13 cabirka sidaan aan haysano waa 13 bar 30 iyo 30 cm okay intaas markaa sameeyna kadib waxaan soo qaadanaynaa maanta offset-keena waa ka duwan yahay kii hore offset-keena maanta wuxuu yahay 40 okay dabaqa maanta dhagaxan ka dhiganaynaa 40 cm okay waxa leedahay 40 inta noori sidaas oo kale intana 40 ka dhig okay cabiradooda marka okay waxa ugu horeey marka 3 mitir 80 sidoo kale 3 mitir 80 sidoo kale 3 mitir 80 salfan soma okay sida markii la dhahoonay 4 mitir 3 mitir 90 3 mitir 90 3 mitir 90 salfan soma sidaas in ku wadayna haleenahay 3 mitir iyo 80 sidaas oo kale 0.4 marka la hadana 3 mitir iyo 80 0.4 marka ugu dambeeyso 3 mitir iyo 80 sidaas oo kale 0.4 okay korka soo bilaab hadana 3 mitir iyo 90 0.4 3 mitir iyo 90 0.4 kan ugu dambeeyo sidaas oo kale 3 mitir iyo 90 0.4 kii ugu dambeeyo okay intaas markay inoo wada tahay waxaan dhahnay trim the space okay kan iyo kan hal dukaan oo isku wada naqana okay hal dukaan oo isku wada naqana sidaas oo kale kana dukaan waay kana qaybtan xagge ayaa baqaar oo ka naqana okay okay meeshan waxa ka jira jaranjartii ku jirto jaranjarta iyada cabirkeedu waxay noqonay 2 mitir iyo 20 ilaa 20 ka darbiga aan ka rabno 2 mitir iyo 40 okay haleena marka AutoCAD-keena tag okay offset soo qaado hadda 2 mitir iyo 20 kadib 2 mitir 20 intee noqonay kadibna ana wuxuu jiraa 20 okay xagga dhererka markaan fiirno xagga balacan hadda ka soo qabanay xagga dhererka markaan fiirno waa 4 mitir iyo 80 okay 4 mitir iyo 80 inta waxay noqonay inta jaranjarta 3 mitir kan intaana mitir iyo 20 asaas uu noqonay 4 mitir iyo 20 soo ma 60 cm kaas oo noqonay
kan inta albaabka kasoo sakanaysana 60 senti ayuu noo noqon doonaa. okay kan xaggan kasoo dhaqaajinayna waxaan dhahnay 4 mitir 4 mitir iyo 8 dibna 20 kiisa noogu dar. mis 4 mitir 4 mitir 8 waxaa ku jiro 20 sidaysa ugu jirta. kan control Z 20 kana gudaha u geli gudaha. waxaan kala jar trim soo wada qaadano marka waxaan leenahay trim space waxa inta ku jiro dhan horta shaqo ku lahaana sidaas oo kale kana inta ka dheere ka bixi sidaas oo kale escape hal mar dhaadid labadan uma baahnid. okay laakiin insha Allah hal mar waxaan sameyn doonaa foundationka column-ka kadib aan si fiican u wada dhigdhigi doonaa. okay leenahay waxaan iska bixin sidaas oo kale sidaas oo kale wixii foundation food column dhan hal mar ayaan wada sameynayna. leedahay labadan uma baahnid space okay 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 hadda waxay noo dhimo marka columnska inaan wada saarno. columnska waxaan leenahay column horta waan sameynaynaa oo waxaa la soo qaadanaynaa box kadibna inta click ku siinayna boxkeena waxaan leenahay 0.4 tab 0.4 kale. okay intaas markaa noo sameysid kadib haddana hinji aan soo qaadanaynaa. okay hinjiga markuu inoo furan solid aan leenahay halka la soo noqdo kadibna waxaa nooga dhigtaa white xataa nooga dhig. okay kadibna ase korsaar click ku dheh escape dheh si wada dooro kadibna mar kastaba horta ku move dheh horta marka ugu horeysa kadib meel geysay noogu qabo. okay marka column-ka noo soo qaadid okay waxaa ka bilaabayna geeska markaan dhigno kadib saan dib u dooranayna waxaa leenahay copy waxaan ka qabanay mar kastaba booska aad leedahay waa gey kartaa. okay sidaas oo kale okay si nadiif aan ku geyna marka. okay waxaan dooranaynaa kan sidaas oo kale kan sidaas oo kale kan sidaas oo kale kan integer sidaan u geey laheeda qaadanay marka. okay geeskana ka qabanaa si toos u geysanaa
sidaas oo kale midka kale sidaas oo kale midka saddexaad. escape noo dheh marka sidaas marka u wada dhameynay marka kaas dukaan oo noqonayo laba albaab leh kan dukaan kale marka guri waa laba jid leh. okay intana jida kamera sidaas oo kale intana jida kamera salvan soma. okay qaybta marka ayaga naftirkooda column files inta kale yahay sidaas oo kale column kalena inta ku wata waxa leedahay marka ana soo qaadata box kale kadibna waxaan ogeysaa point 2. okay point 2 gaan hadda muxuu noqonaa xagga x soma x ahaan point 2 ka dhig y ahaanna point 4 nooga dhig sidaas ka dhig point 2 tab point 4 kadib hinjigana soo qaado white kiis click noogu sii escape noo dheh hadda asiga dooro copy dheh diiskan ka qabo stoosi delete iska dheh kana delete meel qaldan ku dhacay waa bixnay kadib mar kale haddana copy dheh diiskan ka qabo stoosa intana kala marka sidaas waxaan ku dhameynay wallki iyo columnskeena dhameynay meeshii noo saarmi lahaa inshallah marka waxay noo haray ground floorka nooga haray waa ilbaabadii iyo jaranjartii iyo dimensionka inshallah saddexdaasna cashirka noo wixii aan dhameystiri doonaa intaasaan joojin doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.